martida inoogu xigta ee aan jeclahay inaan halkan ku soo dhaweeyo waa xildhibaanad laga soo doorto xisbiga Labourka waxa ay ka soo gashaa degmada Marintii oo ah xaafad kamid ah magaalada London xildhibaanadu waxay u istaagtay oo ay ku hawlan tahay arrimaha xuquuqda haweenka iyo sinaanta sidoo kale waxa ay ka soo barnaamijyada soo jeediye ka ahayd mid kamid ah TV-yada Soomaalida arintaasi oo ah iyada lafteedu mid xusid mudan xildhibaanadu waxay noo soo jeedin doontaa abaalmarinta ganacsiga ee sanadkan fadlan ila soo dhaweeya Don Butler. Our next presenter is a Labour MP for Brent Central and Shadow Secretary of State for Women and Equalities. She is also the former presenter of Live with Dawn Butler, where she showcased her care and attention for the BME communities, which has been unparalleled for years. Presenting the Business of the Year Award, please help me welcome Dawn Butler. Habeen Wagasan. I used to know a lot more when I had my weekly show. Hoden taught me quite a lot. Good evening, everyone. It's a real pleasure to be here with you this evening. I want to say a special hello as well to Andy Slaughter MP, who came back early from his holiday for these important awards. Where are you, Andy? Oh, he's there. There you go. He came back early from his holiday for these awards because they're so important. I'd also like to, I know we're all very posh today, but I'd also like to big up my people from Brent. Yeah? The best constituency in the world, you see, they're here tonight. I am honoured to be here with you tonight to celebrate the success stories from the Somali community which have inspired us all. Do you know that it's a scientific fact that Somali women are the most beautiful women in the world? I think this room more than proves that tonight. The International Somali Awards has grown over the years into not just an award ceremony, but also a night of inspiring stories, and they're shared with the community as a whole. And I know that the stories tonight will inspire many generations to come. Tonight we will truly experience Somali excellence in all of its forms, including in business. Entrepreneurial spirit of the Somali community shines through. So much so in Brent, where the majority of businesses are Somali owned. Even through adversity, Somalis persevere and they thrive and they succeed and they elevate. Somali businesses are key to communities. As a Member of Parliament for Brent Central, the most diverse constituency in the whole of Europe, my constituency is home to many people of Somali origin. I'm proud that I'm their MP. I'm also proud that they are my friends. They represent the community with many contributing positively to businesses and displaying their unique community spirit, which is synonymous with the Somali people. The nominees this year have worked so incredibly hard and have shown creative ideas, sharing their dreams with us, which I'm sure will touch our hearts. It is also inspiring to see that our nominees this year in this category are young, impactful citizens who will make a positive difference, not just in their lives, but in many lives. I would like to pay tribute to all of the nominees this year, and your presence here highlights and captures the Somali spirit beautifully. And now let's take a look at this year's nominees.
started Suave after I saved up for a couple of months from a 9-to-5 job. I bought a couple of machines for my cousin and got the employees and the materials, and I started it. So we get the material, we cut it up, make the lining first from the denim, cut up the denim, make the pockets, stitch it up, put fittings, stitch it up, then put the finishing fittings and stitch the whole thing up. Having this business has given me a lot of satisfaction. Most of all is from it being my own business. What I've learned from it is patience, number one, and working for your own thing, the determination that you need to actually run it and push it through. The major thing is your gut. You go with your gut. Once your gut tells you to do it, then go for it. magacaygu waa maxamed bashiir cismaan oo ku magac dheer maxamed midnimo waxaan ahay maareeyaha shirkadda xayeysiinta iyo naqshadaynta ee Daa-Uus ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. shirkadda Daa-Uus inay ku soo baxday saddex shirkadood ee u tartamaysa wareegga ugu dambeeya ee abaalmarinta caalamiga ee Soomaaliyeed gaar ahaan abaalmarinta Business of the Year ama ganacsiga ama shirkadda ganacsi ee ugu wanaagsan sanadka. I'm Hussein Suleiman. I'm 28 years old. I'm one of the 3 founders of Amsterdam-based clothing label Daily Paper. We started out, I think, like in 2010 with a blog where we were just writing about lifestyle. And in order to promote our blog, we just printed some T-shirts, and that T-shirt had like Daily Paper on it, just to get more traffic to our website. But instead, actually, people were asking for the T-shirts. In 2012, we made like the decision of discontinuing the blog and focusing on design, manufacturing, and distributing apparel. Yeah, that's what we've been doing ever since that moment. I have a very strong connection with the country that I'm from. I think like most Somali people have that. For us to be nominated in an award show made by Somali people and gain that recognition from the people from the country that I'm from is amazing. All amazing. You should be so proud of yourselves. So, the Business of the Year award goes to Daa-Uus. Keep the applause going, keep it going. He hasn't reached the stage yet. Keep it going. We've got the okay. She's still going. Oh, yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mudanayaasha iyo marwooyinka quruxda badan ee munaasabadan qiimaha iyo qaayaha la isugu yimid caawa marka hore waxaan rabaa inaan mahadcelin ballaaran halkan kaga jeediyo anigoo ku hadlaaya magaca shirkadda xayeysiinta iyo naqshadaynta Daa-Uus ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho sidoo kale ku hadlaaya magaca dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanka ku sugan ee dalka ku nool kana shaqeeya inaan idinkaga mahadceliyo codayntii aad u codayseen Daa-Uus mar kalena aan idinkaga mahadceliyo dhageysiga iyo taageerada runtii aan la garab taagneedeen
mahadcelin ka sokow shirkadda Daa-Uus waxay bilaabatay safarkeedu muddo laga joogo 3 sano ka hor oo ahayd fikrad shakhsi ka soo bilaabatay koox gaartay saamaysay maantana mustaqbal iyo nolol u abuurtay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo laga yaabi lahaa inay qaadi lahaayeen dhabaha tahriibka oo dhalinyaro badan ay ku baabeen shirkadda xaysiinta Daa-Uus ma aysan samaynin kaliya fursad shaqo waxay abuurtay oo qayb weyn ay ka qaadatay isla markaana wali qayb ka qaadanaysa rajo soo celinta ummadda Soomaaliyeed iyo in wadanka fikrad walba oo waxgal ah lagu soo celin karo la geyn karo laga shaqaysiin karo laga shaqayn karo ay hormuud u tahay hoyna u tahay una taagan tahay waxaan rabaa abaalmarintan ma ahan mid Daa-Uus oo kaliya ay mutaysatay waxaa mudan dhammaan mar kale aan ku celinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadankii ku nool ee aan soo gaari waayay meeshan ayaan rabaa inaan fariintan hawada u mariyo anaa fariintii idin sida abaalmarintii anaa idin sida anaa idin soo qaaday waxaan rabaa inaan warkayga ku soo gabagabeeyo maanta waxaan joognaa ama caawa waxaan joognaa London Daa-Uusna waxay ku taallaa Muqdisho adeegyada ay qabatana maanta waxaa marqaati ah in yacni xitaa shirkado ka shaqeeya wadamada Yurub iyo waqooyiga America ay maanta qayb ka noqdeen inay macaamiil noo noqdaan isla markaana qayb ka qaataan in guryo Soomaaliyeed ay biil helaan nolol helaan oo ay mataqaanaa rajo geliyaan ma aha waxaan samaynaynaa oo kaliya shaqo waa rajo gelin waa nooleyn waa u dulqaadasho waa mataqaanaa inaan tusaale u noqono dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee dibadda wax ku bartay ee aqoonta kala duwan leh inay iyagana ku dhiiradaan sidii wadanka ugu soo noqon lahaayeen aqoontoodana ay u gelin lahaayeen arrintaasaan rabaa inaan ku soo khatimo waan idinkaga mahadcelinayaa munaasabadan qiimaha leh hay'adda soo qaban qaabisay ATM ururka la dagaalanka qabyaaladda iyo International Somali Award aad baa u mahadsantihiin